ahaan jiray wasiiradii arrimaha dibadda ee Somaliland 1991 ilaa 2026 waxaa Somaliland soo maray 15 wasiir al-khaarij. waxaan jeclahay inaan magacyadooda xuso. qaarkood way dhinteen, 5 ka midii ilaahay ha u naxariisto. 8 ka midina maanta waxaan nasiib u helnay inay kulankan nagala soo qayb galaan. 2 ka midina way ka soo qayb geli kari waayeen. kulanka maanta waa taariikh aynu wada xusayno. marka wasiirkii arrimaha dibadda ugu horreeyey 1991 ilaa 93 wuxuu ahaa Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Sheekh Madar. ilaahay ha u naxariisto. waxaa ku xigay Cismaan Cabdilaahi Jaamac Saylici 1994 ilaa 95. ilaahay isna ha u naxariisto. maxamed cabdi dhimbil galbeedi 95 ilaa 96. allah ha u naxariisto. wasiirkii arrimaha dibadda afraad Suleymaan Maxamuud Aadan, gudoomiyaha golaha guurtida. waa ku faraxsannahay inuu maantana inala joogo isagoo gudoomiyihii golaha guurtida. allah ha u naxariisto. maxamuud saalax fagadhe. wasiir khaarijiye lixaad cabdi xamiid garaad jaamac ayuu ahaa. uu kulanka uga soo qayb geli kari waayey. allah ha u naxariisto. wasiirkii arrimaha dibadda toddobaad Professor maxamed siciid gees. allah ha u naxariisto. wasiirkii 8aad wuxuu ahaa Dr. Adnaa Aadan Ismaaciil. waan ku faraxsannahay inay nala joogto. wasiirkii 9aad cabdilaahi yare cabdilaahi maxamed ducaale. wasiirkii 10aad Dr. maxamed cabdilaahi cumar oo maanta iman kari waayey, safiirkeena iminka ah Nairobi. wasiirkii 11aad Dr. maxamed biixi yunis. waan ku faraxsannahay inuu nala joogo. Dr. Sacad cali shire isna inala joogo, ku faraxsannahay. gudoomiyaha golaha wakiilada Professor yaasiin xaaji maxamuud. wasiirkii 14aad wuxuu ahaa Dr. ciise kayd maxamuud, isna inala jooga. wasiirkii 15aad waa wasiirkii hadda xilka haya cabdiraxmaan daahir aadan. runtii waxaan taariikhda xusaynaa in dhammaan wasiiradaasi uu mid kastaa ku lahaa tacab badan. ictiraafka aynu maanta helnay inuu mid kastaa shaqo badan qabtay, iyagoo dowlado xukuumado kala duwan ka tirsanaa oo u shaqaynayay. maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan halkan kula kulmo badi wasiiradii arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Somaliland soo maray intii ay jirtay. waxaad ahaydeen wasiirayaal shamaca baadigoobayay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland. qof wal oo halkan fadhiya iyo intay naga maqan ama inaga dhimatay, allah ha u naxariistee, waxaad geliseen qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland dadaal, guclo orod, shaqo badan oo guuro iyo habeen dhexba leh. farxad bay ii tahay inay maanta isu helno fursad aan ku dhegaysanno taladiinna, idinkuna mahadnaqno. waxaana kaga baranno casharada ku duugan shaqadii arrimaha dibadda ee aad qaranka ugu soo adeegteen. marka dal aan la aqoonsanayn aad matelaysaanna way ka sii culays badan tahay. sidaa awgeed waxaan idiin aqoonsannahay inaad tihiin mujaahidiintii diblomaasiyadda Somaliland. waxa aad
isaga soo kala dambaysay shaqo fiican oo sees u noqotay dhismaha xiriirka arrimaha dibadda ee Somaliland waana tan noo fududaysay inaanu sii dhammaystirno oo maanta uu Alle inagu guuleeyey aqoonsigii koowaad kuwo kalena aynu filayno insha Allahu waana sababta aan idinku yeedhnay kulankan mahadnaq iyo talo iyo wax soo weydiin ciddii aan xogogaal u ahayn shaqada ay Somaliland qabsatay iyo dhowhanayaal ayuunba aqoonsigeenna ku noqday u qaadan waa iyo kays cidda kale oo kasta way filaysa waa aqoonsi ka dhashay dadaallo isbiirsaday oo intiinii madashan fadhida mid kasta wax ku darsaday taas ayaanu ku sii kordhinay dadaalkayaga iyo istiraatiijiyadii diblomaasiyadeed ee sii dhammaystiri lahayd alle mahadiina oo ay noo midho dhashay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxay ku dhisan tahay iskaashi istixgelin iyo dan wadaag gaar isuma faquuqayno albaabadayada ma xidhayno oo dunida oo dhan ayaanu la macaamilaynaa cid kasta waanu wax la qabsan karno diyaar baanu nahay iyaguna niyadsami iyo wanaag iyo wada shaqayn noo haya waxaanu mahadnaqaynaa dowladda Israa'iil ee aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland diyaarkana u ah inay la yeelato iskaashi labada dalba dana u ah waxaa fursaddan uga faa'iidaysanaya inaan u sheego dalalka aanu saaxiibka nahay deriskayaga walaalahayaga carbeed iyo kuwa gobolka ee muslimiinta ah iyo kuwaan ahaynba gaar ahaan kuwa ku jira Africa Union dadka waynu isaga dhownahay waxay naga dhexeeya dhul taariikh diin iyo dana kale waxaanu idinka mudnayn inaad idinku hogaamisaan garabsiinta qadiyadda Somaliland haddiise laydinka dheereeyey waxaan gaar ula sii hadlayaa dalalka carbeed iyo kuwa islaamka weli fursado badan ayaa u furan idinkoo gobonimadana ilaalinaya yaanay caadifadda iyo muusanowga maangaabku idin hodin oo ha ka hadhina aqoonsiga Somaliland ummadda Somaliland waxaan mar kale u caddaynaya in siyaasadda xukuumaddaydu ay tahay daahfurnaan wada tashi ka faa'iidaysiga waayo aragnimada haldoorka bulshada iyo tixgelinta fahamka dadweynaha sababtaas ayuu ku yimi kulanka wasiiradii hore ee arrimaha dibadda waana aan sii wadi doonaa kulamada si aan u dhegaysanno haldoorka culimada aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda waxaan kaloo aan tixgelinayaa insha allahu fulina doonaa talooyinka ay soo jeediseen ugu dambayn taariikhdu waa mudan iyadoo markhaati nool ah dalka Jamhuuriyadda Somaliland cida kuma muransanaa inuu 1960 Juun boqortooyadii Ingiriiska ka qaatay xorriyadiisii meel walbana way taal madxaf kasta way taal shibciyadda quruuma ka dhaxaysa way taal buugaagta taariikhda way ku qoran tahay cidda dafiraysa iyadaa lugooyo isugu filan annaguna jiritaanka iyagu waa khad cas oo lama taabtaan Somaliland way guulaysanaysaa dalalka kalena way aqoonsanayaan bulshada caalamkana way ka mid noqon doontaa kursigii ay xaqa u lahaydna way ku fadhiisan doontaa guul iyo gobonnimo waarta ayaa shacbiga Somaliland uga baryayaa Ilaahay sidaa uu sheegay gudoomiyaha golaha guurtidu maanta cadowgeenu intii hore uu ka batay kuwii boholaa ku jiray way soo baxeen kuwii dhuumanayay way soo baxeen maanta waxaynu kala ogaanay yaa cadow inoo ah yaa saaxiib inoo ah waxaynu kaga baxaynaa inaynu cadaawadda iyo colaadda aynu ka hortagno midnimo qaran
shacbigayga waxaan soo jeedinayaa midnimo 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 adigaan iskadidinoo kolba meel isku qaadin sariflaha kaash ee dadka kaafiyey ka sarrifo lambarrada kale ah telesom 237 samtel 3 ballanteennu waa sariflaha kaash.